iyo waxgarad iyo xukuumad iyo xisaabba laga doodaya ama laga hadlayo ana fikirkaygan ka dhiibanayaa waxa weeyaan markii uu dagaalku ka bilaabmay dalka Yemen ee jaarkan ahay madaxweynaha imika xilka laga qaaday dawladda jaarkan ahay Soomaaliya Xasan Sheekh wuxuu ku dhawaaqay oo uu yiri Sacuudiga iyo xulafada hogaaminaya ha isticmaalaan airportka magaalada Berbera Soomaaliland arinta way la yaabto waxay yiri ugu riyoonaya Xasan Sheekh muu riyoonayna ka riyoonay waxay taasi ku tusisay daliil cad u tahay Maxamuud Xaashi oo ah wasiirka madaxtooyada markuu leeyahay anaku dhaxdhaxaad malneed dhinac manine waxaanu nahay xulufada ayaanu ka tirsannahay arin ay la isla ogaabay ahayd Xasan Sheekh iyo dawladda maanta wadanka ka talisa ee hogaaminaya Axmed Maxamed Siiraayo sida afkiisa ka soo baxday wasiirka madaxtooyada Soomaaliland waxay u arkiisay inuu ninka Xasan Sheekh uu riyoonayo wadan una shaqo ku lahayn uu leeyahay airportkiisa hala isticmaalo waxaan leeyahay on baaq u soo jeedinaya golayaasha qaranka Soomaaliland waxaan leeyahay golayaasha arinta la idin hor keenay waxa fiican inaad iska hubsataan inay daraf ka tahay Soomaaliya sidoo wasiirka afkiisa ka soo baxday oo loo turjuban karo inay arintan dabada ka riixayso laano ina kuma lihin dawlad la ictiraafsan yahay markii heshiis la galayo dawlad ay la galiso dawlad la ictiraafsan baa la gashaa marka inaku aqoonsi caalami ma haysano taasi waxay noo cadeynaysaa inay Soomaaliya ayna ka marneen arintaas haddii arinta maanta la idin jiirsiiyana waxa ku xigi doonta in la idin keeno la yiraahdo federaalka Soomaaliya aynu ka mid noqonay taana inoo hirgeliya marka waxaan idin leeyahay war ku gumoobina maalin walba ama waqti walba cid uun baa ku gumowda meesha war dadkiidin doortay shicibkiidin doortay dhowr iyo 10 sanadood baad fadhideen way ogtihiin maanta baarlamaanka Soomaaliya wadanka aynu jaarka ka nahay iyagoo bil joogin oo mishaarna qaadan ayay eegeen rabitaankii shicibkooda ay u codeeyeen madaxweynaha maanta doorteen war mar qura waxaan idin leeyahay golayaasha wadanka war mar qura wadanka badbaadiya oo waxaan la idin la imanayo wadankeena waa la wareegaya dekadii baad aragteen haamihii baad aragteen waxa imankana airbase baa imankana la leeyahay imaaraadka la siinaya taasi waxay inoo cadeyn doontaa haddaa taas saxdaan in wadanka la idin kala wareego wax kale inoo ma hadhin oo la yiraahdo war dadkana way wareejinayeen dadkana ansixiya in wadanka laga saaro la wareejiyo marka waxaan leeyahay war ha gumoobina dad ayaad magacyo ku sheegi jirteen aad oran jirteen war dadkaasi waa dad guna waa dad waxba war maanta idinkan abliina la guursan dirin magacii xaq darada iyo dulmiga aad noogu bixiseenna maanta waxaad ogaateen in nagala wareegi doontaan oo laangaab iyo wax ka xun aad noqon doontaan haddaad maanta arintaas sixisaan oo maanta ay dawladdu idin mariso intaas